بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين عشر كأنه عاوح وكبل لابن هيا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الليلة سورة الماعون أيو عشر كأنه عاو وكبل لابن هيا قرآن كقيبته هوسي وهي سورة هوسي قيبته هوسي قرآن كأول إيا آخر بالك ليلة هذا وحو تفسير كأنه كسو باللوضي سورة الليلة سورة الفاتحة سورة الناس سورة الفلق سورة الإخلاص سورة المسد سورة النصر سورة الكافرون سورة الكوثر سورة دها هوسوسي او قرآن كقيبت هوسا ايان نسوق آذاني عشر كأنه عاونا وحان كب الله بينا سورة الليلة سورة maacuun ayuu darsigeenu caawa ka bilaabanaya maacuunta sida hadda ka hor baan soo sheegnay suurad walba waxaa loogu magac daray shay ku jira dhexdeeda ayaa loogu magac daraa maacuunta hadda la sheegahayaahi waa suuradda qaybta ugu dambayda bay ku jirtaa wayamnacuuna almaacuun maacuunta dadka diida ayay suuraddu ka hadlaysaa oo deriska iyo qofka u baahan aan alaabta aan tabalcaarayn ama aan caariye u siinin ama aan u kaalmaynin suuratulmaacuun makiyatun suuradda suuratulmaacuun la yidhaahdo magaceedu waa makiya waxay ku soo degootay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuusan soo hijroonin ka hor wa aayaatuhaa sabcun aayadaheeduna waa toddoba aayadood weeye waxay ka hadashaa laba qaybood oo ka mida makhluuqa ayay ka hadashaa gaalka ilaahay diidan nicmadiisa yoomka qiyaamo xisaabta inkiraya yoomka qiyaamo lays amaal marinaya inkira suuraddaanu way ka hadashaa waxay kaloo ka hadashaa ruuxa munaafiqa ah oo aan camalkiisa ilaahay dartii u samaynin oo hadduu tukado hal lagu arko u tukanaya oo hadduu wax bixiyo hal lagu arko oo hal lagu maqlo hal lagu faaniyo wuxuu bixinaya oo ficilka uu sameeyo ilaahay dartii aan uga jeedin labadaas qaybood oo munaafiqiinta iyo gaaladay ka hadashaa iyo waman xadaa xadwahum qofkii jidkay mareen qaada ilaahay ha naga samata bixiye qaybta koobaad sifooyinkooda xun waxaa ka mida gaalada oo suuraddan way noo sheegaydo inay agoonta xaqooda u diidi jireen inay agoonta si xun ay ukulul ula hadli jireen inaysan khayrka iyo masaakiinta loo kaalmeeyo samaynin qolada labaadna tilmaanteeda waxaa ka mid ah salaadooda inay iska halmaansan yihiin waqtigeeda marka la gaaro inaysan tukanayn hadday salaadii suura ahaan ula yimaadaan laa macnan ula iman maayaan almuraa'uuna biacmaalihim baa la yidhaahdaa yusalluuna wahum kusaala ayagoo wehsanaya bay tukanayaan marka halaag iyo cadaab baa labada qoloba loo ballan qaaday bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allahaasoo arraxmaani naxariista caamka a naxariista arraxiimi naxariista gaanahaaneed mu'miniinta aakhiro ku khasisahaya ayaan abtadi'u magaciisa ku bilaaban hayaa ara'ayta iga warran nabiyullaahi moxamedow waa istifhaam litacajub watashwiiq baa la yidhaahdaa hal carafta aladii yukadibu biاljazaa waalxisaab fi alaakhira hal carafta man huwa wamaa hiya awsaafuhu ara'ayta ii warran nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam alladii midkii iiga sheekay yukadibu beeninhaya midkii ka sheekay macnaha oo midkaa ka warran akhbaartiisa iyo axwaashiisa haddii inaad doonto haddaad inaad ogaato aad doonto ara'ayta ka warran alladii midkii yukadibu beeninhaya bidiini yoomka qiyaamo oo lays amaal marinhayo bal ruuxa diidan arrintiisa ka warran fadaalika midkaasi alladii waa midkii yadacu hantaataqinaya ama yadacu reebaya alyatiima agoonka ayuu xaqiisa u diidayaa agoonka ayuu reebahayaa xaqiisiibuu ka mancinhayaa dafcan caniifan bijafwatin waqaldah si kakan oo xun ayuu u reebahayaa waa qahrahayaa
waa dulminhayaa xaqiisa ma siinhayo si xun ou agoonta ula dhaqmayaa fadaalika midkaas oo yoomka qiyaamo beeniye alladii waa midkii yadacu reebaya oo hantaataqinhaya ama waxa weeye hantuulinhaya alyatiima agoonka walaa yaxubu kumana boorin maayo calaa dacaami almiskiin miskiinka quudintiisa iyo in wax la siiyo ummadda ku boorin maayo fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukanaayuu u sugnaaday alladiina kuwaa tukado oo hum ayagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna ka sahwinhaya salaadoodii bay iska halmaansan yihiin sahaa cankadaa yashuu sahwan bimacnaa qafala weeye idaa tarakahu can qafla shayga markuu halmaan ahaan uga tago way iska moog yihiin salaaday ku dhex sahwinayaan laguma odhan maxaa yeelay mu'miniintu salaada iyagu ku jira ayay ku sahwiyaan inay 2 ragca marahayaan inay 3 marayaan wayna ka dhacday rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam tashriican bay uga dhacday xagga gaarsiinta dacwada iyo risaaladana kuma aha nuqsaan kuma aha tashriican bay uga dhacday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laakiin sahwigan hadda la sheegayo munaafiqiinta ka dhacaahi fii xaraf jara lama geline can ayaa la raacsiiyey salaada dhan xaggeeda ayayba ka sahwinhayaan waqtigeeda inay soo galay inuu waqtigeedii baxay in waajib lagu leeyahay inaan lagu lahayn waaba iskala midba waa munaafiqiin wax cabsi la yidhaahan ku jirin baa looga jeedaa alladiina kuwaasoo hum ayagu yuraa'uuna istusinaya dadka hal lagu arko markay wax samaynayaan hal lagu arkay u sameeyaan hal lagu maqlay u sameeyaan hal lagu faaniyay u sameeyaan hal lagu ammaanay u sameeyaan ilaahay dartii uma sameeyaan cadaabta uga badbaad uma sameeyaan qabriga ku samatabax uma sameeyaan wayamnacuuna waxay kaloo diidaan almaacuuna alaabta maacuunta derisku hadduu u soo doonto oo uga soo baahdo ma ay siin hayaan buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuraddaani waxay ku soo degootay ruux gaal ah oo la yidhaha abijahal oo dagaalkii beder baa lagu dilay abijahal waxaad arkaysaa dadka macnaha waxa weeye muslimiinta ah ama dadka dulaabulcilmiga ah qaybo ka mid ah oo dadka waxa weeye aan daraasaadka iyo taariikhaha iyo aad ula socon oo fii bacdi alaxyaan isku qasahaya waxa weeye abilahab iyo abijahal abilahab waan ka soo qisoonnay taariikhdiisa wuxuu ahay nabiga adeerkii gaal buu ahaa cadowgii rasuulka buu ahaa calayhi salaatu wasalaam asaga iyo qoyskiisiiba waa ka soo hadalnay suuradda la yidhaha suuratu tabbat ama suuratulmasadna magaceeda waa la yidhaahdaa ayaan uga soo hadalnay wuxuu geeriyooday dagaalkii beder 7 habeen ka bacdi dagaalkii bederna kama qayb gelin waa kaas waa sidaa xukunkiisa waa ka soo hadalnay laakiin abujahal oo hadda aan asaga qisadiisa ka hadlayno oo suuraddan inay ku soo degooto la sheegay asagu wuxuu ku geeriyooday dagaalkii beder gaaladii lagu laayay oo waaweynaay oo sanaadiidda quraysh ahaa oo ceelka gorofka ah jiifadooda iyo qurunkooda nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku shubay oo korka uu ka istaagay oo uu yidhi annagu waan helnay ilaahay wuxuu noo ballan qaaday iyo nasriga ilaaheeye adinka ma hesheen ilaahay yaboohiisii ee ilaahay ballantiisi iyo waciidkiisii gaaladii la yidhi buu ku jiray dagaalkii beder baa lagu dilay abujahal abulahabna dagaalkii beder ka bacdi uu geeriyooday 7 habeenuu ka sii dambeeyey marka gaalkan suuraddaani waxay ku soo degootay abujahal waxaa loo dardaarmay canug yar oo yatiim ah oo loo dardaarmay oo wasi oo u ahay ayaa jiray baa la yidhi canugii yarka ahay oo lagala ballamay oo noloshiisa iyo mas-uuliyaddiisa looga tegayo wasiga looga dhigay ayaa maalin u yimid baa la yidhi asagoo qaawan oon dhar wadan asagoo xoola u baahan markaasuu yidhi xoolihii aan lahay isii buu yidhi meeshii la rabay inuu agoonka xoolihiisa wax ka siiyo oo dhar ka siiyo oo nolol ka siiyo ayuu xabadka gacanta ka geliya baa la yidhi wou tuuray waa hantaatiqii marka ruuxaas bay ka hadlaysaa agoonta xoolahooda asagu iskaga tasarrufahaya
iska maamulan haya agoonta xoolahooda waa la iska ilaaliyaa guryaha waxaa ugu shar badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam guriga canuga agoonkaahi ou joogo oo la dulleeyo guryaha sharta badan buu ku jiraa sidaas ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhi waxay ku soo degootay gaal la yidhaha abu sufyaan bay ku soo degootay intuusan soo islaamin wuxuu bireeyey geel marka canug agoon aha u yimid hilib isii buu yidhi markaasuu ku garaacay baa la yidhi ul ou haystow ku garaacay sidaas banna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la sheegay inay ku soo degootay gaal la yidhaha weliid binu muqiiro ninkii waxa weeye wacalnimada 9 sifo oo shareecadu ay quraanku uu ku tilmaamay ilaahay uu ku tilmaamay suuratu waxa weeye qalam ay noogu imaan doontaa nuun wal qalam ay noogu imaan doontaa insha Allah wax ama munaafiq bay ku soo degootana waa la yiraahdaa si kastoo tiraahdaba waxay ka hadlaysaa tilmaamahan xun qofkii ku tilmaanaada ayay suuradu ka hadlaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim araaytaka warra nabiyullaahi muhammadow alladii midkii ka sheekay yukadibu beenin haya biddiin yoomka qiyaamo fadaalika midkaas qiyaamada beeniy alladii waa midkii yadacu reebaya yadacu hantaatulin haya yadacu hantaataqin haya alyatiima ruuxa agoonka ah xabadka inta gacanta ka geliyo qofka xaqiisa u diidaya waa ruux qiyaamadii inkirsan maxaa yeelay hadduu qiyaamada rumaysan yahay oo yowmuddiin rumaysan yahay agoonka xaqiisa kama duudeen walaa yaxubbu aana boorinayn calaa dacaami lmiskiin miskiinka in wax la siiyana ummadda ku boorin maayo waxa weeye masaakiinta in wax la siiyo asaguna wax siin maayo masaakiinta waxa la siiyana dhihi maayo asaguna waxba siin maayo dadkana odhan maayo war masaakiinta waxa loo qabto waxaa la rabaa ruuxa miskiinka in loo gargaaro nabigu masaakiinta buu jeclaa calayhi salaatu wasalaam waa la fariisan jiray waa u gargaari jiray waa gacan qaba jiray asxaabtiisii baa masaakiin ahaa sekada in la siiyaa shareecadu jidayday gargaar badan ayaa masaakiinta fitrada in la siiyo sekada in la siiyo waxyaabo badan qaniimadii in qayb laga siiyo shareecadu in la dhaqaaleeyo oo dadka dhibaataysan oo ama majaaniinta ah ama waxa weeye sidaas oo kale jidadka iyo lagu tuuro oo waxa weeye ee laqiidka ah ama maahare caqligoodii iyo garashadoodii ay dhiman tahay dadka oo dhan in la xanaaneeyo ayayna amraysaa ma aha in waxa weeye ee islaamka qofka in la xanaano dareeyo diintu ma ay ogola masaakiintii in wax la siiyana amri oo maayo asaguna dacaam siin maayo maxaa yeelay qiyaamadii ayuu beenin hayaa fawaylun halaag oo walaa yaxubbu calaa dacaami lmiskiin maskiinka in wax la quudiyana ummadda ku boorin maayo fawaylun halaag iyo cadaab waylka waxaa la yidhaahdaa waa waadi jahannamo ku yaalla allaha naga badbaadiyo halaagna waa lagu fasiray cadaabna waa la yidhaahdaa halaag iyo cadaab khasaaro iyo dhibaato waxay u sugnaatay lilmusalliina kuwa tukanhaya aladiina kuwaas tukanhayo hum ayagu can salaatihim salaadoodii xaggeeda saahuuna ka sahwiyeen salaadoodii iska halmaansan a looga jeedaa yu'akhiruunahaa can awqaatihaa wakhtiyaalkeediibay ka dib dhigahayaan tahaawunan bihaa salaadii bay fududaysanayaan ibnu cabbaas wuxuu yidhi huwa almusallii alladii in sallaa lam yarju lahaa sawaaban waxaa looga jeedaa ruuxan halaagu ku dhacayo ruuxa waa tukanaya laakiin markuu tukanayo sawaab ka hel u tukan maayo wain tarakahaa lam yaksha calayhaa ciqaaban hadduu ka tagana ciqaab amau kaaga yimaada is odhan maayo ka baqi maa cadaabta ilaahayba abucaaliya sheekh la yidhaha wuxuu yidhi laa yusalluunahaa limawaaqiitihaa wakhtiyaalkeeda marka la gaaro ma i tukadaan walaa yutimuuna rukuucahaa walaa sujuudahaa sujuuddeeda iyo rukuucdeeda mataam yeelaan nabigaa la su'aalay calayhi salaatu wasalaam aayaddan fasirkeedaa la su'aalay faqaala markaasuu yidhi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam hum aladiina yu'akhiruuna asalaata can waqtihaa kuwa laga hadlayo waa kuwa salaada ka dibdhiga wakhtigeeda mufasiriintu waxay dhaheen
can salaatihim saahuun markii can la geliyo xarafkaa culima waxaa la ogaaday annahaa fi lmunaafiqiin inay ka hadlayso munaafiqiinta walihaada qaala bacdu salaf culummadii salafka qayb ka mida waxay odhan jireen alxamdu lilaahi aladii qaala can salaatihim walam yaqul fii salaatihim waxaa mahadle ilaaha xarfu can ka cabiray oo salaadooda xaggeeda yidhi laakiin fii salaatihim aan odhan liannahu low qaala fii salaatihim hadduu dhihi lahay lakaanat fi lmu'miniin mu'miniintii ka hadli laheed waalmu'minu qad yashuu fii salaatihi mu'minku salaaduu ku dhex sahwiyaa labada sahwina farqiga u dhexeeya waa kuu cad yahay maxaa yeele sahwiga munaafiqu waa tarkun wa qilatu iltifaatin ilayha waa salaada xaggeediiba inuusan milicsanayn oo iskaba tegayo iskaba moog yahaba sahwiga mu'minkuna waxa weeye waa ka bedelan yahayo salaadii hadduu ragcad iyo wax iska halmaamo isla markiibay ku soo dhacee sujuudu sahwi buu ku kabahayaa fadahara alfarqu bayna sahwayn farqigu marka waa kuu muuqdaa labada sahwi macnaha faariqa u kala dhaxeeya aladiina kuwaa sahwinayo hum ayagu yuraa'uuna istusinaaya markay tukanayaan dadka hortiisay ku tukanayaan rukuucdiibay ku daahayaan sujuuddiibay ku daahayaan lishuhrati waalriyaa waasumca hal laguu jeedo hal lagu ammaano darteed bay saa u samaynhayaan wayamnacuuna waxayna diidahayaan almaacuun maacuuntiibay ummaddii u diidahayaan oo maacuuntiibay mancin hayaanoo dadkiibay waxay u diidayaan maacuuntii alaabtii yaryareed oo layska soo tabalcaaraysan jiray cirbaddii oo kale iyo faaskii oo kale iyo dheriga oo kale iyo biyaha iyo milix oo kale marka loo soo doonto iyo wadaantoo kaleeto iyo weelasha layskaga soo baahdo imaamulmujaahid waxaasoo dhan ayuu yidhi maacuun la yidhaahdaa waa alaabaha dadku kala qaataan bay diidahayaan imaamu dabarina wuxuu yidhi maacuunta ummadda anfacayday diidayaan ayaa looga jeedaa maacuuntuna waxaa la yidhaha min kulli shayin fiihi manfaca marka waxa weeye waa bakhiilnimo bakhiilna tilmaan fiican maaha walaalayaal waxaa la yidhaha maacuunta maa laa yastaqnii canhu alqaniyu waalfaqiir waa ruuxa qofka faqiirkaana wuxuu u baahan yahay qaniguna wuxuu u baahan yahaa la yidhaha maacuun sida faaskoo kale sida dherigoo kaleeto sida godintoo kale sida walibra cirbadoo kale walqasca xeeradoo kale walmaqdaxa qarsinkoo kale waxa weeye walqarbaal bahalka la yidhaahdo masaftoo kale wadalw walmilxu walmaa biyaha milixa wadaanta wannaaru walkibriit wakayru dalika min alashyaa wax kastoo beled iyo baadiyeba looga baahdo oo waxa weeye dadka joogaahu markaas ay kala qaataan ayaa maacuun la yidhaahdaa qofka mancin hayaa tilmaan marka fiican ma aha waa xun yahay qofkaasi waxaa sunnaa qofku inuu gurigiisa ku badiyaa la yidhi maa yaxtaaju annaasu waaljiiraan waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin oo uu soo gado alaabaha waaweyn oo qofku markuu leeyahay weliimo iyo muraadka iyo uu leeyahay alaabaha loo baahdo inuu waxa weeye gurigiisa soo dhigo oo dadka dhibaataysan ou caariyo geliyo oo waajibaadka kaliya uusan ku gaabsanin baa wanaagsan baa la yidhi marka suuraddaanu intaas bay ka hadlaysaa da waxa weeye gaalada dhaqankeeda waxaa ka mid ahay inay odhan jireen gabdhaha iyo ilmaha yararkaa iyo dumarka dhaxal lama siinayo xaqooday u diidi jireen waxay odhan jireen baa la yidhi xoolaha waxaa qaadan kara qof oo da' gaadhay marka xuquuqda oo dadkoo la manciyo xaqulkayr oo layska qaato maacuunta oo la diido agoonka xoolihiisaoo la cuno waxay ka mid tahay salaada oo hal lagu arko hal lagu maqlo loo tukado kulli waxaas waa dhaqankii munaafiqiinta iyo gaalada weeyi waxaa loo baahan yahay inaan muslimiinay taas ka gudubno oo masaakiinta xoolahooda la siiyo oo agoonka xaqiisa aan la duudin oo miskiinka loo kaalmeeyo oo deriska iyo waxyaabaha ay kaaga baahdaan layscaariyo geliyo oo laysgacan qabto oo layswalaashado sidaas ayuu qur-aanku nafarayaa oo xadiidka rasuulku nafaraya calayhi salaatu wasalaam